بسم الله الرحمن الرحيم وعنو wanaagsan saaxiibayaal daawadayaal meel walbo ay joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo qayb kale oo ku saabsan wararkii ugu dambeeyay ee saacadihii la soo dhaafay guud ahaan caalamka gaar ahaan dagaalka maalintii 24aad galay ee ka soconaya marinka Gaza. Qaybtan waxaynu ku ogaan doonaa daqiiqadihii ugu dambeeyay waxyaabaha soo kordhay iyo falanqeyn aynu dul istaagi doona meelaha qaar insha Allah taala. Soo dhawaada mar kale ka mid noqo saaxiibadeena aad baad u mahadsantahay. waxaan ku hormari doonaa macluumaadka ku saabsan wararkii ugu dambeeyay. xarunta Marwe Fertility Center waxa loo aqoonsaday xarunta ugu wanaagsan ee daweysa cudurrada keena dhalmo la'aanta ragga iyo dumarka. Fadlan booqo xarunta Marwe Fertility Center, Muqdisho Taleex. 24 maalin waxa duqeymaha ay si caadi ugu soconayaan goobaha ay degan yihiin dadka rayidka, dhismayaasha, iskuulada, masaajidada iyo xaafadaha kala duwan ee marinka Gaza. awoodda burburka waxyaabaha qarxa ee tan iyo maalintii 7 Oktoobar loo adeegsaday marinka Gaza waxa lagu waramayaa inay sare u dhaafeen ama ay ka bateenba awoodda bambaanooyinkii nuclear-ka ee lagu garaacay magaalooyinka Nagasaki iyo Hiroshima oo ka tirsan dalka Japan. xafiiska warbaahinta ee dowladda Falastiin ee marinka Gaza ayaa maanta baahiyay macluumaadka ku saabsan in 18,700 oo tan ay gaarayaan awoodda qaraxyada ama bambaanooyinka lagu duqeeyay marinka Gaza tan iyo bilowgii dagaalka oo soo bilowday 7 Oktoobar. Mas'uuliyiinta xafiiska warbaahinta ee marinka Gaza ayaa sidaa sheegay, waxaana ishaaci ka qaadeen xalay oo kaliya in goobo badan oo dad rayid ay degan yihiin si weyn loo bartilmaameedsaday. waxa ugu daran deegaanka Beedlaaxiya, deegaanka Al-Ataarix, deegaanka Al-Zaytuun iyo deegaanka lagu magacaabo Al-Sujaya. Mas'uuliyiinta dowladda Falastiin ee marinka Gaza ayaa sheegaya dhammaan in deegaanadaas inta badan ay dhacaan dhanka waqooyi galbeed ee marinka Gaza. haddii sida kale aynu u dhigno halkii tan wuxuu u dhigmaa 1,000 kilogram. marka waxaad isku dhifataa 18,700 oo tan waxaad ku dhifataa 1,000 kilogram. waa awoodda kilogram ahaan ama culayska intaa la eg waxyaabo qarxa ah ayaa lagu garaacay marinka Gaza. sidoo kale afayeen u hadlay waaxda difaaca rayidka ee marinka Gaza oo Maxamuud Baasal lagu magacaabo wuxuu yiri waxyaabaha ka dhacaya kaliya magaalada Tell Hawa lagu magacaabo inay yihiin gumaad lagu dhibaateynayo dadka rayidka ah, lagu baabi'inayo hantidooda. wuxuu yiri xalay oo kaliya 100 gantaal ayaa lagu garaacay xaafadan, taas oo ka dhigan in la doonayo gabi ahaanba dukundaakum in laga dhigo magaalada ama xaafada Tell Al-Hawa lagu magacaabo oo ka tirsan marinka Gaza. guutada Al-Qassam oo garabka military ee Xamaasna waxay shaaci ka qaadeen maanta inay gantaalle ay ku garaaceen magaalada Caskalaan. magaaladan oo 25 kilomitir qiyaastii u jirta marinka Gaza. waxaa la sheegay gantaalada inay ku dhaceen dhismaha warshad ku taalay magaalada Caskalaan sida uu baahiyay raadiyaha ciidanka ee Israa'iil. qasaaro ayaa lagu waramayaa inay gantaaladaas ay geysteen, laakiin faahfaahin dhaba lagama hayo. sida ay baahinayaan warbaahinta Israa'iil iyo sidoo kale telefishinka Al Jazeera, mas'uuliin ka tirsan ee dowladda Mareykanka ayaa laga soo xigtay in xubno Saraakiil ah oo Israa'iiliyiin ah ay tan iyo Sabtidii ay booqanayeen magaalada Dowxa ee dalka Qatar. ujeedaduna waxay tahay in dowladda Qatar ay dhexdhexaadin ka dhex samayso oo ay fududeyso sii deynta maxaabiis tiro badan oo gacanta ugu jira dagaalyahanada Xamaas. wargeyska Haaretz oo Israa'iil ka soo baxana wuxuu daaha u ka qaaday Isniinta maanta ah in la helay dukumeentiyo iyo warqado muujinaya oo dhanka sirdoonka ah. warqadahaas oo cadeynaya isku daygii ugu horreeyay ee la doonaya in dadka rayidka looga barakiciyo marinka Gaza kadibna deegaameen looga sameeyo waqooyiga gacanka Sinai ee dalka Masar. marar badan ayaan idinla wadaagay dhammaan macluumaadkan in dowladda Masar ay diiday, laakiin waa markii labaad oo warbaahinta Israa'iil ay soo bandhigaysa cadeymahan. waxaa ka horreeyay mid ka mid ah wargeysyada arrimaha dhaqaalaha ka faallooda oo Israa'iil ka soo baxo oo bannaanka keenay macluumaadka ay diyaarisay qaybta sirdoon ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Israa'iil. sida aad ka arki karaysaan halkan deegaanka lagu magacaabo Al-Zaytuun, ciidamada Qudus oo ka tirsan guutada Islamic Jihad ayaa shaaca ka qaaday inay nolosha ay ku qabteen ciidan tiro badan oo Israa'iiliyiin ah, sidoo kalena gacanta ay ku dhigeen gaadiid dagaal. waxaa kaloo ay sheegeen in deegaanka Al-Zaytuun ay ku burburiyaan dhowr gaadiid. halkan oo deegaanka Al-Zaytuun sida telefishinka Al Jazeera uu baahiyay waa deegaanka ugu daran ee ay duqeymaha iyo gantaalada ku dhacayeen saacadihii la soo dhaafay. qoraalkan oo ka soo baxay ee guutada Al-Qudus oo telefishinka Al Jazeera uu soo bandhigay wuxuu u qornaa sida tan: mujaahidiinteenna waxay gacanta ay ku dhigeen gaadiid dagaal oo ay lahaayeen cadowga Israa'iil, kuwaas oo doonaya inay dhinaca bari ay ka soo galaan magaalada Al-Zaytuun. natiijadana waxay noqotay in gaadiidkoodii burburo, ciidan badanna aynu gacanta ku dhigno. sidaas ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay guutada Al-Qudus
oo ka tirsan garabka Islamic Jihad. Mareykanka waxa uu ku baaqayaa saacadihii la soo dhaafay xabajoojin degdeg ah. John Kirby oo ka mid ah mas'uuliyiinta dowladda Mareykanka ee aqalka cad ayaa waxa uu shaacu ka qaaday inay soo dhaweynayaan xabajoojin degdeg ah sida telefishinka Al Jazeera uu baahiyay. Waxa uu yiri ninkan waxaynu taageeraynaa fikradda ah in xabajoojin bini'aadanimo laga dhaqangeliyo gudaha marinka Gaza iyada oo wax shuruud ah aan lagu xireynin, waana in si dhab ah loo qaataa buu yiri gargaarka in la gaarsiiyo marinka Gaza, sidoo kalena la soo daaya dadka maxaabiis ahaan ay u haystaan dagaalyahanada Xamaas. Gutada Al-Qassam oo ka tirsan garabka military ee Xamaasna dhankooda maanta waxay sheegeen in ay magaalada Beersheba la yiraahdo ay ku garaaceen dhowr gantaal. Waxay xaqiijiyeen magaaladan in ay gantaale ay ku garaaceen, sidoo kalena ay bartilmaameedsadeen goobo ay ku sugnaayeen ciidanka ammaanka. Magaalada lagu magacaabo Caskalaan iyo magaaladan Beersheba la yiraahdo oo Israa'iil xoog ay ku qabsatay 48 meelaha, waxaa loo badinayaa inay yihiin goobaha ugu badan ee lagu diyaarinayo ciidanka ammaanka ee Israa'iil ee doonaya weerarka dhanka dhulka ah inay qaadaan. Dhinaca kale, Ra'iisul Wasaare Benjamin Netanyahu waxa uu sii wadaa booqashooyinka uu ku tagayo xerooyinka ciidanka. Ninkan cadaadis badan oo gudaha ayuu wajahayaa, dhanka siyaasadda ama siyaasiyiinta cadaadis ayuu ka wajahayaa, saraakiisha ciidanka oo isla shaqeynayaan cadaadis weyn ayuu ka wajahayaa maadaama ciidamada qaar iyo saraakiishaba aysan ku qanacsaneen weerarka iyo dagaalka soconayaba. Sidoo kale cadaadiska ugu weyn waxa uu kala kulmayaa waalidiinta askarta Israa'iiliyiinta ee gacanta ugu jira ciidamada Xamaas, oo waxa ay ka dalbanayaan in dagaalka la joojiyo si caruurtooda aysan ugu dhiman furumaha dagaalka ama gododada lagu hayo. Isagana waxa uu doonayaa dagaalka inuu sii socdo oo mana muuqanayso sida ugu dhaqsiyaha badan inay Gaza ay kaga bixi doonaan ciidanka Israa'iil, sababtoo ah waxay doonayaan in dagaalyahanadaas ay soo furtaan magaaladana dukumdaakum laga dhigo, ama ugu yaraan waxa ay qayb ay ka tahay qorshihii la doonayay in dadka shacabka ah la qoosgeliyo ugu dambayna lagu qasbo inay ka barakacaan magaalada Gaza. Wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudiga waxa uu ku baaqay si degdeg ah in xabajoojin loo dhaqangeliyo. Amir Faisal bin Farhan oo la hadlay wakaaladda wararka ee dowladda Sacuudiga wuxuu telefoonka uu kula hadlay dhigiisa dalka Ireland, waxaana la sheegay inay ka wada hadleen dhibaatada soconaysa iyo sidii Ireland ay qayb kaga noqon lahayd xabajoojin ka dhaqangasha marinka Gaza. Dhinaca kale, telefishinka Al Jazeera ayaa wuxuu baahinayaa macluumaadka ku saabsan inay qatar amni ay wajahayaan. Wakiilada telefishinka Al Jazeera ee ku sugan marinka Gaza waxay leeyihiin Israa'iil waxay ku hanjabtay inay bartilmaameysan doonto xarunta telefishinka Al Jazeera qaybta Ingiriisiga gaar ahaanna hoyga ay ka degan yihiin magaalada Gaza. Sidaasi oo kale dhowr jeer Israa'iiliyiinta waxay hanjabaad u direen xarumaha caafimaadka, ugu dambayna way bartilmaameysadeen. Waxa soo baxaya dhanka koonfureed ee Lebanon haddii aynu eegno weli in iskoorimaadka u dhaxeeya ciidanka Israa'iil iyo ciidanka Xisbullah sidiisii uu yahay, oo mararka qaarkii ciidamada Xisbullah waxa la arkayaa iyaga oo gubaya nidaamyada isgaarsiinta ee ku hareereysan dhanka xuduudda. Sidoo kale waxay soo bandhigeen iyaga oo gawaari badan gubay. Saacadihii ugu dambeeyay labada dhinac ayaa gantaale isweydaarsaday, laakiin warbaahinta Lebanon waxay leedahay dowladda Lebanon inta badan waxay iska ilaalinaysaa in dagaalka uu ku sii baaho gudaha dalkaasi Lebanon. Hoggaanka Al-Azhar waxay soo saareen in dowladaha Islaamka, Masar, Carabta iyo guud ahaan caalamkaba ay u midoobaan sidii ay u caawin lahaayeen dadka shacabka ee Falastiiniyiinta maadaama ay wajahayaan mid ka mid ah weerarada isirsifaynta ah. Dhinaca kale, afayeenka ciidanka Xamaas ayaa wuxuu shaacu ka qaaday in gelinkii hore ee maanta dagaalyahanada Xamaas ay ku guuleysteen in gabi ahaanba ciidamada Israa'iil ay u diidaan inay galaan deegaano kale oo dhowr ah oo dhinaca waqooyi ee marinka Gaza dhaca, maadaama halkaas ciidankii ugu badnaa la keenay. Sidoo kale waxaa lagu warramayaa guutada inay sii wadayaan dagaalka dhanka dhulka ah ee ku dhifo oo ka dhaqaaqda ah. Weerar gaadma ayay sheegeen inay ku qaadeen xarumo kala duwan oo ay lahaayeen ciidamada ammaanka. Waxa kaloo ay sheegeen inay khasaare gaarsiiyeen. Dhinaca kale, guutada Al-Qassam oo garabka military ee Xamaas ayaa soo bandhigay muuqaal ay ka duubeen mid ka mid ah haweenka maxaabiista ah ee u xiran. Fariin ayay gabadhan waxay u dirtay Ra'iisul Wasaare Benjamin Netanyahu sida goordhow uu baahiyay telefishinka Al Jazeera. Gabadhu fariinteeda waxay ku leedahay waxaynu dalbanaynaa inaad na sii daysaan, waadna dayacdeen tan iyo Oktoobar bilowgeedii, waadna dilaysaan, ma waxaad doonaysaan inaad annaga na qaarijisaan? Sidaas ayaa doonaysaan, hana dilina. Annaga waxaynu nahay dad xor ah. U ogolaada maxaabiista Falastiiniyiinta ah inaad sii daysaan, annagana noo ogolaada inaan dib ugu soo laabanno guryaheenna. Sidaasi ayay tiri gabadhan oo ka mid ah maxaabiista u xiran ee Xamaas oo fariintaani laga duubay. Fariintana waxay ku wajahneed Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu.
arinta muuqaalkan waxa loo fasiran karaa marka inay tahay mid cadaadiska kusii kordhinaysa ra'iisul wasaare Netanyahu oo maalmihii ugu dambeeyay waalidiinta ee dhalay dadka Xamaas ay gacanta ay ku hayaan si weyn cadaadis ay u saarayeen ra'iisul wasaaraha sidoo kalena Xamaas dhankooda waxay doonayaan in arintan ay u noqoto mid kamid ah shuruudaha ay la hortagi karaan Israa'iil si loo wada hadlo waxyaabaha ka soo kordha guud ahaan barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha Allah